kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xaalka Muqdisho oo kacsan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kana soo horjeeda muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo oo maanta si awood ah kula wareegay qaar kamid ah xaafadaha Muqdisho. ciidamadan oo isku fidinaya xaafadaha dhacabari iyo waqooyiga Muqdisho halkee ay haatan ku sugan yihiin ciidankan maxaase ka jira in saraakiisha hogaaminaysa ciidankan ay sheegeen inay gaarayaan ilaa iyo madaxtooyada banaanbaxyo karana madaxweyne Farmaajo oo ka dhacay xaafadihii ay la wareegeen ciidankii sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhintii loo sameeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya. waa sidee xaalka Muqdisho oo maanta galay jawi ka duwan jawiyadii hore cabsi intee leeg ayay qabaan dadka shacabka inta badan wadooyinka gala madaxtooyada muhiimkan oo ah dawladda federaalka oo la xiray iyo ciidamo ka tirsan booliiska haram cad oo la soo dhoobay wadooyinkaasi. xogihii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ayaan barnaamijkan intiisa badan ku eegi doonaa iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga oo war ka soo saaray ciidankii maanta qabsaday qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho iyaga oo soo saaray war ka duwan warka ay faafiyeen saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana galab axada 25 bisha afraad ee Abriil sanadka 2022. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinkoo ku shargareynaya baraha bulshada. mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta gashay jawi ka duwan sidii hore kadib markii ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay si awood ah kula wareegeen xaafadaha dhaca waqooyiga iyo bari ee magaalada caasimadda Muqdisho. xaalad kacsanaana ayaa haddaba lagu soo waramaya inay maanta ka taagan tahay waqooyiga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan qaybo kamid ah degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshid ee gobolka Banaadir. ciidamo militari ah oo godoodsan isla markaana ka godoodsan muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya sida ay sheegeen ayaa gabi ahaanba la wareegay isgoyska Fagax iyo qaybo kale oo kamid ah degmooyinka Kaaraan, Yaaqshid iyo Hilwaa ee gobolka Banaadir. wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay ka soo baxeen furmaha dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay hore ugu sugnaayeen. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in gaadiid fara badan oo nooca dagaalka ah ay wataan ciidamadan oo isku fidiyay xaafadaha ku dhow isgoyska Fagax. sidoo kale wararka ee ka imaanaya degmada Kaaraan ee duleedka Muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan inay ku sugan yihiin halkaas ciidamo kale oo uu hogaaminayo ninka la yiraahdo Cornel Sanay Cabdulle Gaab kuwaasi oo iyaguna wata ilaa iyo 10 gaadiid oo nooca dagaalka ah. saraakiisha hogaaminaysa ciidankan gadoodsan ayaa waxa ay isugu yeereen warbaahinta maanta iyada oo halkaasina ay ku soo bandhigeen dibadbaxyo iyo ciidankooda iyo waliba sidoo kale gaadiidka ay wataan. dawladda Soomaaliya ayaan iyadu wali si rasmi ah warkan uga hadlin amaba dhacdadan maanta ka dhacday magaalada Muqdisho aan wali wax wara ka soo saareen. xaaladda magaalada Muqdisho ayaa waxa ay tahay mid aad u kacsan iyada oo wali laga dareemayo magaalada dhaqdhaqaaqyo kala duwan. haddaba wararkaasi ayaynu ku guda jirnaaye oo barnaamijkeenana aan intiisa badan ku eegi doonaaye. dibadbaxyo ka dhana madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay ka dhaceen isgoyska Fagax iyo xaafado kale oo kamid ah waqooyiga Muqdisho kadib markii ciidamo gadoodsan ay la wareegeen xaafadahaasi. waxa magaalada Muqdisho ka bilowday goorsii horeysay banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dhigayay qaar kamid ah dadweynaha magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka iyo waliba sidoo kale ilo wareedyo halkaasi ku sugan. dibadbaxan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Fagax oo kala qaybiya degmooyinka Yaaqshid iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir halkaasi oo lagu waramay inay gacanta ku hayaan ciidamo ka gadoodsan dawladda Soomaaliya oo sheegeen in muddaxileedkeedii uu dhamaaday. dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay ku dhawaaqayaan erayo ka dhana madaxweyne Farmaajo oo si weyn uga soo horjeedaan aragtidooda sidoo kalena waxa ay taageero ku gubeen bartamaha isgoyskaasi. erayada ay dibadbaxayaashu ku dhawaaqayeen ayaa waxa kamid ah muddo kororsi dooni mayno madaxweyne Farmaajo iyo kaligitalisna dooni mayno. waxay gabi ahaanba hakiyeen isku socodkii gaadiidka ee isgoyska Fagax iyada oo ammaanka banaanbaxayaasha ay sugayeen ciidamo militari ah oo saacado ka hor la wareegay isgoyska Fagax ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo iyaguna ka gadoodsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. xaaladda isgoyska Fagax ayaa waxay tahay mid aad u kacsan waxaana laga cabsi qabaa in banaanbaxan uu ku sii fido qaybo kale oo kamid ah degmooyinka gobolka iyada oo warbaahintana ay halkaasi wali ku sugan tahay isla markaana ay soo tabinayso dhacdooyinka halkaasi laga soo sheegayo.
ciidamadan ee gadoodsan ee maanta soo galay magaalada muqdisho sidoo kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in ay isku fidiyeen qaybo kale oo hor leh oo ka mid ah magaalada muqdisho. wararka aan helayno ayaa sheegaya in ciidamadan ay sidoo kale gaareen ilaa iyo isgoosyada darjiinka iyo weliba sidoo kale isgooska kale ee loo yaqaano Monopolio oo halkaasi ka agdhowdhow. weli ma jirto dhaqdhaqaaqyo kale oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya marka laga reebo in ay xirteen wadooyinka muhiimka ah ee gala madaxtooyada Soomaaliya. saraakiil hogaaminaysa ciidankan oo warbaahinta maxalliga qaarkood la hadlay waxay sheegeen in ilaa iyo madaxtooyada Soomaaliya ay doonayaan in ay markaasi gaaraan haddii ay u suurto gasho. wararka laga helayo xaaladda magaalada muqdisho waxay sidoo kale tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyadan ay ka dambeeyaan siyaasiyiinta mucaaradka oo iyagu heshiis weyn la galay sida la tilmaamay ciidankan aad ku faraha badan iyo saraakiisha hogaaminaysa. isla wararkaas intaanan ka bixin magaalada muqdisho maanta wadooyinka ugu muhiimsan gaar ahaan kuwa gala madaxtooyada waa la xiray, waxaana wadooyinka lagu arkaya ciidamo fara badan oo ka tirsan booliiska Haramcad iyo qaybaha kala duwan ee booliiska Soomaaliya. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay xireen maanta qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda kuwaasi oo loo diidayo inay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan. wadooyinkan xiran ayaa waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah wadada dheer ee Maka al-Mukarrama, wadada aada dhinacaas iyo airportka iyo wadooyin kale, waxaana lagu arkayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda oo xitaa u diidaya dadka caadiga ah in ay halkaasi lugtooda ku isticmaalaan maadaama maanta muqdisho xiisad culus ay ka taagan tahay. ciidamadan ayaa sidoo kale waxa ay si gaar ah isha ugu hayaan oo ay u ilaalinayaan baraha control ee laga galo madaxtooyada Soomaaliya. laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin xiritaanka wadooyinka muqdisho iyo ujeedada laga leeyahay. hase ahaatee waxaa maanta magaalada muqdisho soo galay ciidamo gadoodsan oo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaasi oo ka soo horjeeda muddo kororsiga loo sameeyay dowladda Soomaaliya iyaga oo la wareegay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho. haddaba lama oga tallaabada ay qaadi karto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo iyadu arrintaani ay ku noqonayso dhabarjab weyn marka loo fiiriyo in xaafadihii magaalada muqdisho ay la wareegaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya balse aan iyagu siyaasad ahaan taageersaneen dowladda federaalka ee Soomaaliya. horey waxaa ciidamadan inta aysan soo galin magaalada muqdisho loogu diray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage, kaasi oo ku gacan seeray in uu xalliyo amaba uu ku qanciyo ciidamadan militariga ka tirsan in ay ku sugnaadaan halkii ay ka yimaadeen isla marhaantaana aysan ka soo bixin furumaha dagaalka. balse ciidankan ayaa arrintaasi iyagu ku guuldareystay, waxaana la sheegay in ugu dambeyn ay ku guuldareysteen in ay u hoggaansamaan amarkii ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasi oo ahaa in aysan soo galin magaalada caasimadda ee Muqdisho. si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta waxay tahay mid aad u kacsan iyada oo dadka shacabka ahna ay cabsi ka qabaan inay dagaalamaan ciidamadan ka tirsan militariga Soomaaliya ee ka gadooday dowladda federaalka iyo kuwa dowladda Soomaaliya, inkastoo weli uusan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sareysa. ugu dambeyntii saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa iyagu waxay ka hadleen ciidamo la sheegay in ay ka gadoodeen dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo ka tirsan militariga Soomaaliya. saraakiishan oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa waxay sheegeen inaysan jirin haba yaraatee ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaasi oo gadoodsan amaba qaab qabiil u abaabulan isla marhaantaana doonaya in ay soo galaan magaalada muqdisho isla marhaantaana ay ka soo baxaan furmaha dagaalka. saraakiishan waxa ay sheegeen inay iyagu ku sugan yihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose halkaasi oo ay ka howlgalaan, waxayna sheegeen inaysan ogeen ciidan soo goostay amaba gadoodsan oo ku soo wajahan magaalada caasimadda ee Muqdisho. balse ugu dambeyn waxaa dhacday in ciidankaas ka tirsanaa militariga Soomaaliya ay soo gaaraan caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho iyagoo ugu dambeyntiina la wareegay xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho. isku soo wada duub waxaa lagu wadaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay galabta ilaa iyo caawa ay war kulul ka soo saarto dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho oo ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay kula wareegeen xaafado dhowr ah oo ka tirsan Muqdisho. dadka ayaana aad ula yaaban in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay tallaabadan oo kale ku dhaqaaqaan. siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la sheegay in iyagu
ay magaalada muqdisho muddooyinkii dambe ka wadeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ciidan ah kadib markii madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ee iyagu degeen waqooyiga magaalada muqdisho halkaasi oo ay sheegeen inay u degeen istaraatiijiyad ee dhinaca ciidanka ah waxaana muddooyinkii dambe madaxdaasi gaarayay oo halkaasi ugu tegayay ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga Soomaaliya. haddaba wararka kusoo kordha xaalka magaalada muqdisho oo galay jawi ka duwan sidii hore wararkeena dambe ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa warkaana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan warkan warkiisa xiga dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.